jaamacadda Camuud waxa la aasaasay sanadkii 1997 iyadoo ay jaamacaddii ugu horeysay ee laga furay Jamhuuriyadda Soomaaliland hase ahaatee waxa si rasmi ah loogu dhawaaqay 4 bishii November ee sanadkii 1998 iyadoo xilligaasi lagu bilaabay ilaa 70 arday kuwaasi oo lagu furay labadii kuliyadood ee ugu horeeyay oo kala ahaa kuliyadda waxbarashada iyo kuliyadda kale ee maamulka iyo maareynta ganacsiga maadaama xarunta dhismaha jaamacadda Camuud ee loo yaqaan dhinaca campus uu ku yaalo goob qiyaastii masaafo 5 kiiloomitir dhinaca bari ka xigta magaalada Boorama ayaa waxay sidaas daraadeed lagama maarmaan noqotay in la helo gaadiid sahla isku socodka jaamacadda iyo magaalada gudaheeda gaar ahaan macallimiinta iyo ardayda wax ka barata waxaana la isticmaali jiray labadii baabuur ee ugu horeeyay oo ahaa nooca basaska xilligaasi oo jaamacadda Camuud inay horumar xawli ah ku samayso dhinaca waxbarashada gacan weyn ay ka geysteen kasoo aqoon-yahanada ka soo jeeda gobolka gurbajoogta kale ee ka soo jeeda dalka qiyaastii ilaa 4,000 oo buug ayaa xilligaasi waxa la soo dhigay qaybta library-ga sanadkii 2001 ayaa waxa jaamacadda lagu soo kordhiyay kuliyadda daawada iyo qaliinka oo noqotay kuliyadii saddexaad ee iyadoo halkaasi ka hirgashay taasi oo soo saartay digtoorro iyo dhakhaatiir fara badan oo uu dalku aad ugu diirsaday waxaana kuliyadahaasi ka farcama ilaa 6 qaybood oo kala duwan sida farmasiga laboratory-ga iyo x-ray-ga kuliyadda daawada iyo qaliinka ee jaamacadda Camuud ayaa waxa ay xidhiidho kala duwan la samaysaa jaamacadaha dibadda iyo waliba maxadka caalamiga ah ee King's College ee ku yaala magaalada London ee cariga wadanka Britain kaasi oo barayaashiisu inta badan qaarna ay wax ka dhigaan qaarna ay qaadaan in xaq imtixaanaadka sanadkii 2005 ayaa jaamacadda Camuud waxa dhidibada ay u taagtay kuliyadda beeraha iyo deegaanka oo noqotay kuliyadii afraad ee iyadu laga bilaabay jaamacadda waxaana ilaa haatan ka baxay in ka badan 5 dufcadood oo kala dambeeyay iyadoo ay ku jiraan ardayda sida gaarka iskaga xilqaanta soo diyaarinta maalinta xuska deegaanka caalamiga ah sanadkii 2006 ayay ahayd markii labada kuliyadood kuliyadda shareecada iyo qaanuunka iyo kuliyadda kale ee kalkaalinta caafimaadku ay ka hara qaadeen habka waxbarasho ee jaamacadda Camuud kuwaasi oo qayb ka noqday kobaca iyo kororka ku yimid dhinaca tirada iyo tayada waxbarasho waxay ahayd maalin la yaab leh markii guddoonka sare ee jaamacadda Camuud ay ku dhawaaqeen in albaabada loo furay 3 kuliyadood oo ishuwan balse kala jaad ah markaasi ayaa sanadkii 2009 waxa lagu soo kordhiyay jaamacadda kuliyadaha ay ka mid ka yihiin kuliyadda engineering-ka kuliyadda barashada aalada farsamada casriga ah ee tiknoolajiyada ee loo yaqaan ICT-ga iyo waliba kuliyadda barashada culumta ilkaha kuwaasi oo aad xiiso gaar ah u galiyay ardaydii iyagu xilligaasi jaamacadda soo bilowday kasoo kuliyadaha iyo adeegga waxbarasho ee jaamacadda Camuud ay ku bixiso heerka koowaad ee lagu diyaariyo shahaadada loo yaqaan degree-ga ee bachelor-ka koowaad waxa kale oo jira adeegyo waxbarasho intaasi dheer oo ay ka mid yihiin tababarada dhinaca macallimiinta dugsiyada hoose dhexe iyo waliba sare iyo barnaamijyada kale ee loo yaqaan Scott-ka waxa kale oo intaasi dheer barnaamijyada gaarka ah ee ka baxsan waxbarashada balse barbar socda oo ay ka mid yihiin tartanka koobka kubadda cagta ee u dhaxeeya kuliyadaha kala duwan ee jaamacadda kaasi oo sanad kasta halkaasi laga qabto iyo toddobaadka dhaqanka oo sanad kasta ay ardaydu ku soo bandhigaan hal-abuurnimada iyo hibooyinka gaarka ah ee ay ka mid ka yihiin dhinaca suugaanta iyo farshaxanka ardayda wax ka baratay jaamacadda Camuud oo gebi ahaanba isaga yimaada deegaanada bariga Afrika ay Soomaalidu degan tahay ayaa inta ay ku jiraan waxbarashada waxa ay ku xidhan yihiin goobaha u suurtagelinaya samaynta ficilka waxbarasho ee afka qalaad lagu yaqaano practicalka kuwaasi oo ay ka mid yihiin cusbitaalada waaweyn ee magaalada Boorama sida cusbitaalka jaamacadda Camuud ee Al-Hayaat dugsiyada waxbarashada shirkadaha ganacsatada iyo waliba hay'adaha maxalliga ah jaamacadda Camuud muddada ka badan 16 sano ay soo jirtay waxa ay xidhiidho kala duwan la samaysay ku qotoma dhinaca waxbarashada jaamacado ku yaala dalka dibadiisa wadamada Ethiopia Kenya Koonfur Afrika iyo dalka Britain ayaa qayb ka ah wadamada ay ku yaalaan jaamacadaha inta ugu badan xidhiidhka la leh jaamacadda Camuud waxayna xubin ka tahay jaamacadaha bariga Afrika sanadkii 2013 ayaa jaamacadda Camuud waxa ay furtay barnaamijka waxbarashada heerka labaad ee loo yaqaan School of Postgraduate-ka kaasi oo lagu diyaarinayo shahaadada heerka labaad ee masterate jaamacadda Camuud ayaa haatan waxa ay ka kooban tahay 13 kuliyadood oo ka kooban ilaa 40 takhasusaad kuwaasi oo ay ka baxeen maanta dufcadii 13aad iyo 2 qaybood oo isugu jira
shahaadada masterida oo iska leh ilaa iyo 7 takhasusaad haddana wax ka barta jaamacadda Camuud arday ay tiradoodu ka badan tahay ilaa iyo 4000 kuwaasi oo ka kala yimid in ka badan 30 meelood oo kamid ah deegaanada Soomaalida ee bariga Afrika iyagoo ay wax ka dhigaan ku dhawaad 230 macallin kuwaasi oo isugu jira professoro barayaal iyo welibana kaaliyayaal waxaana haatan u adeega in ka badan 30 baabuur oo ah gaadiidka u shaqeeya jaamacadda ugu dambeyntiina waxa xusid mudan in si weyn looga dareemayo jaamacadda Camuud dhismayaal hor leh oo ku soo biiray kuwaasi oo ay ka mid yihiin dabaqyadu waa Ibrahim Cabdullaahi Ibrahim Suxufi